bismillaahi raxmaani raxiim. subax wanaagsan, kulan wacan oo wanaagsan daawada. halkan waa janalka xulashada wararka. waxaad ku soo dhawaataa wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. waa subaxnimo khamiis ah 27 bisha May 2021. qodobada xiisaha badan ee muuqan aad ku daawan doontaan waxaa ka qayb noqonaya diyaar garowga munaasabada saxiixa heshiiska wada tashiga doorashooyinka oo ku saleysan ambaqaadida dhamaystirka heshiiska 17 Sebtembar oo magaalada Muqdisho laga dareemayo. warar kala duwan oo kasoo baxaya nuqxurka heshiiska horudhaca ah ee maanta la saxiixayo yaa saxiixaya kaalinta madaxweyne Farmaajo uu ku leeyahay iyo qodobo kamid ah heshiiskaasi oo xulashada wararka heshay ayaa daawan doontaan. garabka Cabdi Xaashi Cabdullaahina waxa uu ka hor yimid heshiiska doorashada iyadoo ay sheegeen xubnahaasi looga hiiliyay Mahdi Maxamed Guuleed qadar xubnaha gobolada waqooyi si aad ah ay u xifaaltamayaan. xifaaltankan halka uu ku saleysan yahay iyo garabkaasi warka ka soo yeeray maadaama diyaar garowga munaasabada ayaa si toos ah magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya kaga soconaysa. saxiixa heshiiska cida sida gaarka kaga qayb noqonaysa waqtiga doorashooyinka la qabanayo gudiyada sida loo soo kala magacaabayo ayaa daawan doontaan. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waxa ay howlgallo ballaaran ka wadaan qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe maadaama maalintii shalay ahayd deegaano badan oo gobolkaasi ka tirsan ay gacanta ku dhigeen kadib markii ay kala wareegeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. qaramada midoobana waxa ay ka hadashay fikirkeeda kaga aadan Soomaaliya sidii u diiday ergigii midowga Afrika ay soo magacaabeen Soomaaliya madaxweynihii hore ee Ghana oo dowladdu ay ku eedeysay in xiriir uu la leeyahay dowladda Kenya. qaramada midoobay war ka soo baxay arrinkaasi looga hadlay waa daawan doontaan iyo macluumaadka ku saabsan guud ahaan oo inta badan aan ku eegi doono heshiiska la filayo in la saxiixo iyo diidmada ka timid Cabdi Xaashi Cabdulaahi garabkiisa ayaa daawan doontaan. haddaad ka mid tahay saaxiibada janalka ku xiranna muuqan sii shareegaray oo saaxiibadaada kale gaarsii si xogta halkan ku jirta ay u helaana. sidoo kale haddaad ka mid tahay saaxiibada janalka ku xiran fadlan subscribe saaro oo hela xogo faahfaahsan oo ku saabsan xaaladaha ka jira dalka. waxaan ku bilaabayaa waxaa lagu wadaa magaalada Muqdisho in saacadaha soo socota ay ka furanto munaasabad lagu saxiixayo heshiiska doorashooyinka isla markaana uu garwadeenka ka yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. watashiyadii ugu dambeeyayna ay qayb ka ahaayeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Hanaduqa magaalada Muqdisho. heshiiska si rasmi ah looma faahfaahin balse nuqulo kamid ah ayaa la helayaa oo ku saabsan waxa lagu heshiiyay iyo heshiiska nooca uu yahay. xafladda waxaa la filayaa inay ka qabsoonto xarunta Afasiyoon iyadoo maalmo ka hor la diyaariyay goobta ay fadhiisanayaan madaxda kala duwan ay ka qaybgalaysa maadaama ay ka mid yihiin xubno ka tirsan dowlad goboleedyada musharaxiinta beesha caalamka iyo bulshada rayidka ah. xubnaha xilligan heshiiska qaybta ka ah waxaa ka jira Axmed Madoobe iyo Saciid Dane oo wadahadladii hore u fashilmay iyaga loogu eedeeyay. qodobo kamid ah heshiiska oo aan helnay waxay tibaaxayaan in arrinta gobolka Gedo lagu dhameeyo guud ahaan in la qaado soo jeedinta gudiyada farsamo ee ku shiray magaalada Baydhabo kaas oo nuxurkiisu ahaa in xubnaha maamul goboleedyada ay wafdi dib u heshiisiineed u diraan magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo. in Axmed Madoobe uu maamul cusub halkaasi u magacaabo iyo 3 in booliiska Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ay sugaan amniga doorashada gobolka Gedo ka dhacaysa. Roble iyo saxiixayaasha kale heshiiska ayaa isku afgartay in 3 bil gudahooda lagu qabto doorashada iyadoo wixii khilaaf iyo dooda ka imaada fulinta heshiiskaasina ay go'aan ka gaari doonaan 7 xubnood ee saxiixaya iyadoo xusid mudan tahay in booska Maxamed Cabdilaahi Farmaajo lagu bedelay ra'iisul wasaare Roble. Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa uu munaasabadaasi ku yeelan doonaa kaalin xiritaan oo kaliya uu khudbadda xiritaanka halkaasi uu ka jeedin doono waxaana lagu wadaa in maamul goboleedyada musharaxiinta mucaaradka xubnaha ka socda beesha caalamka iyo kuwa ururada bulshada iyagana in halkaasi ay hadal ka jeediyaan maadaama munaasabada ka qaybgalayaan hadal laga siinayo. dhawaan wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq waxa uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay u sheegay in heshiis wada jir ah ay gaareen ra'iisul wasaare Roble madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ku saabsan doorashooyinka dalka ee baarlamaanka iyo madaxtooyada. haddaba markaan eegnana waxaa jira
qodobo badan oo ku saabsan heshiiska iyada oo la sheegayo in si horudhac ahna looga helayo. Siyaasadda dhinaca kaga aadan urmutiyeedka maanta soo baxaya waxaa laga hadli doonaa arrimo badan oo ku saabsan xalka dalka u baahan, iyadoo sidii tirada codbixiyaasha ee dooran doonta halka kursi ay ahaan doonto 101 ergo, waana golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa kaloo baarlamaanka dowlad goboleedyada ay soo dooran doonaan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. Guddiyada lagu muransan yahayna isbedel ayaa lagu sameeyay, iyadoo ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyadana soo magacaabi doonaan xubno hor leh. Waxaa sid mudan in guddiga hirgelinta doorashada heer federaal oo 2 guddi midkood doorashada iyo kan khilaafka uu ka kooban yahay 15 xubnood oo maamul goboleed kasta min 2 xubin oo ku yeelanaya, halka guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleedna uu maamul kasta dhisayo 11 xubnooda. Amniga waxaa la sheegayaa xogta xulashada ay heleysana ay tibaaxayaan in doorashooyinka amnigeeda ciidamada booliiska iyo kuwa howlgalka nabad ilaalinta AMISOM ay si aad ah kaga qayb qaadan doonaan, iyadoo meesha laga saaray cabsidii iyo awoodii farmaajo in ciidamada u adeegsado laga cabsi qabay. Waxaa sid mudan in xulista ergada ay iska kaashan doonaan odayaasha dhaqanka, bulshada rayidka iyo golaha deegaanka ee markaas jira ee dowlad goboleedyada ka hoos shaqeynaya. In qoondada haweenka ee 30% ah la ilaalinayo, halka jadwalka doorashooyinkana ay noqon doonaan kuwo 6 bil gudahooda lagu soo gabagabeeyo dhammaan doorashooyinka 2021, waxaana xubnaha baarlamaanka ka mid noqonaya lacagta laga rabo ay tahay $20,000, halka xubnaha aqalka sarena ay noqon doonto $10,000. Doorashooyinkana waxaa lacagaha ku baxaya ka qayb qaadan doona deeq-bixiyaasha caalamka, iyadoo dowladda federaalk ee Soomaaliyana ay qayb ku yeelan doonto bixinta lacagahaasi. Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa markan kaalintiisa meesha ay ku dhuntay tan iyo markii howlaha doorashooyinka uu wareejiyay, waxaana la wareegay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble kadib markii dib looga noqday sheekadii muddo kordhinta 2 sanadood ee doorasho qof iyo codka ah. Waxaana dhamaystirka heshiiska laga doonayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, iyadoo markan caqabado xoogan ay soo wajahayaan. Caqabadaha waxaa ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada waqooyi ee Somaliland, gaar ahaan garabka uu hogaamiyo gudoomiyaha aqalka sare, ayaa waxa ay soo saareen qoraal ay ku cadeynayaan in shirka maanta lasoo gabagabeynayo ee heshiiska looga gaaray khilaafka doorashooyinka aysan cidna ku matalin, islamarkaana wixii kasoo baxa aysan quseynin. Qoraalka waxa ay ku sheegeen in maalmahan ay rajo ka qabeen in shirka ka socda Afisyooni laga qaybgeliyo gudoomiye Cabdi Xaashi, ay u arkaan inuu muhiim u yahay midnimada iyo wax ka go'aamida arrimaha masiiriga ah ee dalka, balse taasi ayaa dhicin islamarkaana laga tegay. Waxaan u cadeynaynaa saamiliyada siyaasadda shacabka Soomaaliyeed ee beesha caalamka in wax talo aan ku lahayn wax xog oo saxna aan ka helin, sida laga soo xigtay arrinta Somaliland oo ka mid ahayd 3 qodob ee xalka looga qabtay shirka, ayaa lagu yiri qoraalka. Ugu dambeyntii, qoraalka ay soo saareen siyaasiyiinta gobolada waqooyi garabka Cabdi Xaashi uu hogaamiyo waxay ku sheegeen in haddii sidan heshiiska lagu soo gabagabeeyo ay bulshada Soomaaliyeed iyo warbaahinta la wadaagi doonaan faahfaahin la xiriirta qadiyadda doorashada 57 kursi ee deegaan doorashadoodu tahay Somaliland, islamarkaana ay qaadan doonaan go'aan masiiri ah. Maanta ayaana lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo shirka. Munaasabada weyn ayaana ka socota magaalada Muqdisho qaawadeeda, balse lama oga caqabadan iyo warkan ay soo saareen xubnaha garabka uu hogaamiyo Cabdi Xaashi, iyadoo meesha ay ka baxayso howshii adkeed uu soo qabtay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo noqonaysa hal bacaad lagu lisay. Dadaalo uu sameeyay Rooble, madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa gebi ahaantoodba noqday kuwo wax natiijo aysan kasoo bixin, maadaama garab walba uu doonayo in howsha ugu badan isaga uu la wareego, hogaamintana uu qaato. Xubnaha siyaasiyiinta xildhibaanada 2 aqal ee taageersan garabka Mahdi Guuleed ayaa iyagana ku adkeysanaya in hogaaminta uu leeyahay Mahdi Guuleed, halka garabka kalena ay ku adkeysanayaan in hogaaminta iyo howsha wadisteeda uu shaqo ku leeyahay Cabdi Xaashi Cabdilaahi. Waxaana markaan la ogeyn sida xukuumadda ay kaga falcelin doonto haddii heshiiska la saxiixo, maadaama ay sheegeen xubnahan in go'aan ay qaadan doonaan 57 xubnood ee 2 aqal Somaliland ku matashana tallaabooyin ku aadan go'aan masiiri ah ay qaadan doonaan. Guud ahaan wararkii ugu dambeeyay shirka ku saabsanaa ayaan diiradda ku saarnay. Waanaga intaa warka subax ee janaalka xulashada wararka.
waad ku maasan tahay daawashadaada. Inta ku kulmi doono muuq ku saabsan xogahan iyo macluumaad kale. Nabadgelyo.